السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها خالقة إن شاء الله ما أنتو حنبرن دونا همزة الوصل يسيد الله آخري يقاب كله هنجاديو يسيد إلمها الله برا ينقادن دونا إن شاء الله وأنا درسي لواتني شنات يتوبرك معلنك هنجادة على منهج التطبيق والتمكين في تعليم قواعد القراءة والكتابة ولكن آذن محمد كسر هذا مخالكة ربتيد إنad محل همزة الوصل ilmaha bartid waxa sameynaysa marka hore calaamada hamzatul wasli u keen calaamada hamzatul wasliga u keen sidaan hore u soo sheegnay waxa dhaanay hamzatul wasli waxa waaye alif oo kor laga saaray maxal laga saaray maxal saad oo gadaalka maxal ka goosan yani saadku markuu sidaan u ahaa gadaal hada ka maxal ka gooysid waxa soo haray sidaan ay soo harayso ka bacdi maxal lahayo yani maxal calaamada ay waxa la soo qaadaya waxa la kor saaraya maxal lahayo yani alifka ay la kor saaraya saas wuxuu ku noqonayaa hamzatul wasli marka hadaad aragtid maxal lahayo alifkan oo calaamadan kor ka saaran waxaad ogaataa inuu yahay hamzatul wasli sidaan ayaad maxal ilmaha aad ku fahansiinaysaa kan maxaa waaye hamzatul wasli kan maxaa waaye hamzatul wasli kan maxaa waaye hamzatul wasli marka sidaas ayaad ku fahansiinaysaa kitaabkan waad ka tusaysaa kitaabka quraanka soo qabo canuga maxal ardayga ka tus maxal hamzatul wasliga sidaas ayuu ku fahmi karaa cunuga u fiirsa meeshan sidaan oo kale marka hore waxaad leedahay hamzatul wasliga waxa loogu talgalay in sukuun lagu akhriyo yani sidaan ognahay hamzatul wasliga sidiisa maxal lahayo waxa loo keensadaa hamzatul sukuun ayaa loo keensadaa sababtan waxa way sukuunka wuxuu u baahan yahay kordhig hoos dhig godaal in laga soo hormariyo hadii la waayo oo xaraka ka horeysa hadii la waayo hamzatul wasli ayaa loo keensanaya si sukuunka markaas loo akhriyo marka cunug waxaad leedahay yani hamzatul wasliga waxa loogu talgalay in sukuun lagu akhriyo oo maxaa sukuuna wuxuu rabaa kordhig hoos dhig godaal in laga soo hormariyo hadii la waayo maxaa la sameeynaa hamzatul wasli ayaa loo keensanaa hadii la waayo maxaa la sameeynaa hamzatul wasli ayaa loo keensanaa markaas waa la akhri karaa kadib marka cunug waxaad fahansiinaysaa in maxal hamzatul wasliga wax xaraka ah korkiis inaysan ka muuqanaynin meesha marka la ku celinaya hamzatul wasliga waxa loogu talgalay in sukuun lagu akhriyo oo maxaa sukuuna wuxuu rabaa kordhig hoos dhig godaal in laga soo hormariyo hadii la waayana maxaa la sameeynaa hamzatul wasli ayaa loo keensanaa oo hamzatul wasli kordhig ma saaran may hoos dhig ma saaran may godaal ma saaran may heesidee loo akhrina ilaa sida la ogyahay hamzatul wasliga wuxuu leeyahay qaacida ayuu leeyahay markii la akhrinayo qaacidadaas ayaa la raacaya laakiin marka ilmaha baraysa sida ayaa leedahay u fiirsa meeshan hamzatul wasliga marka rabtid ina akhrisid waxaad fiirinaysaa xarf saddexaad حرف سدحات أصيق يعني همزة الوصل واكنا وفي سماشان أصيح حسابتك سو بلابي ساليدهاي كان لواد يعني كان ميدكو كحي والنمبر لبو ميك سدحات ونمبر سدح واي مركب وحاليدا سيدا وفي سب يعني همزة الوصل مركب عرفتid إنا أخرسيد وحال فيرنا حرف سدحات هدو قدال ساريهاي همزة الوصل وحاليدهاي وحد وآخرنا سيدي أو أكله يد وآخرنا همزة الوصل ميدك لو حاواي حدي حرف سدحات وكرديك ساريهاي ama hoos dhig saaran yahay hamzatul wasli waxa loo akhrina sidii i oo kale ayaa loo akhrinayaa oo kale ayaa loo akhrinayaa sidee waay hadii xarf saddexaad oo kordhig ama hoos dhig saaran yahay hamzatul wasli waxa loo akhrinayaa sidii i oo kale ayaa leeyahay hamzatul wasliga marka kaliya oo acmal loo akhrinayo waxa waaye waa marka uu la socdo hamzatul wasliga laam uu la socdo laamtaas waxay u kala baxdaa al-qamariyya ma fahanti al-qamariyya iyo al shamsiya ma fahanti iyo al shamsiya ma fahanti iyo al shamsiya ayaa maxallaha yani ayaa maxallaha laanta u kala baxda sida maxallaha sida la ogyahay mid kale waxa waaye hamzatul wasliga marka oo maxallaha oo la akhrinaynin oo uu dhacayo oo la akhrinaynin waxa waaye markuu dhaxda u galo hamzatul wasli haduu dhaxda u soo galo lama akhrinayo hadii xarafka oo ka hormaro lama akhrinayo ma fahanti lama akhrinayo marka u fiirso meesha tusaalihiisa waa kana hamzatul wasliga waan hingaadinayna u fiirso hamzatul wasli tasqutu waslan nabda biha a ama i ama u yani hadba waxay ku xiran tahay yani maxaa la xaraf saddexaad xarakada saaran ayay ku xiran tahay hadii xaraf saddexaad uu godaal saaran yahay waxa leedahay nabda biha u ayaa leedahay hadii xaraf saddexaad oo kordhig ama hoos dhig saaran yahay waxa leedahay i ayaa leedahay haduu laam la socdo waxa leedahay nabda biha ayaa leedahay hadda meeshan xarf saddexaad waxa way ceen waaye godaal ayaa saaran maxaa leeyahay ilaa waxaan soo marnay xarf saddexaad godaal saaran u ayaa leeyahay marka meeshan hamzatul wasl waxa leeyahay u ayaa leeyahay meeshan waxa uu akhrinayaa uduu ayaa leeyahay kan u fiirso kordhig ayaa saaran see loo akhrinayaa isma ayaa la leeyahay kan u fiirso yani xarf saddexaad hoos dhig ayaa saaran waxa leeyahay
ihbit ayaa leeyahay ma fahanteen marka meeshan u fiirso dhaxda ayuu ku jiraa hadda hamzatul wasl dhaxda ayuu ku jiraa lama akhrinayo waa laga boodayaa lama akhrinayo laakiin qoraal ahaan waa la qorayaa aan gaadinayna u fiirso meeshan hamzatul wasli nabda biha ila alxarf saddexaad maxaa saaran godaal ma waxaan leenahay hamzatul wasli nabda biha u dal sukuun ud cayn dama udcu intan u fiirso hamzatul wasli nabda biha u fiirso meeshan xarf saddexaad kordhigaya saaran nabda biha i ayaa leeyahay ila xarf saddexaad kordhigaya saaran si sukuun is mi fatxa ma isma u fiirso meeshan hamzatul wasli nabda biha i ha sukuun ih ba kasra ta sukuun bit ihbit ma fahantay qaabkaas ayaad u gaadinaysaa u fiirso meeshan soo dhaxda ku jira waa kana واو فتحة همزة الوصل تسقط وصلا أي leedahay إن صار سكون وس بكسر الراء سكون بر واصبر ما فهمتي marka qaabkaas ayaa loo hingaadiyaa hamzatul wasliga guud ahaan maxalla hamzatul wasliga qaabkaas ayaad ilmaha ku bari kartaa marka waxaad sameynaysaa marka u hafaafee yani iyar ilmaha u sii haddii kale kulli waxaan hal mar ma fahmi karaan marka sidaas ayaa waxaan kusoo gaarnay dhammaadka darsigeena maanta insha allah haddii aad ka faa'iidaysatay fadlan walaalkaaga u sii gudbi jazaakumullahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh